بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، maanta waa Saturday weeyaan, waa maalintii barnaamijkeennii aynu geli jirnay aan kula taliyo talo maqaadan talo wati Allah subxaanahu wa tacaala. talo adaa ku noole iyadoo kuguma noola. taladu walaalayaal waxay ka dhalataa laba talaabo dhexdood. taladu waxa weeyaan maanta dad baa waxay yidhaahdeen maanta talaan hayaa laakiin tabar ma hayo, laakiin mar waxaa jirtaa aad tabar haysid laakiin aadan taladii haynin. marka insha allah biidnillaahi kariim kusoo dirsada awdalxawan@gmail.com. haddii allah subxaanahu wa tacaala uu yidhaahdo sheekheena barakaysan baa idin siin doona talada teeda wanaagsan. talo wati allah subxaanahu wa tacaala. walaa culimmadu waxaad og tihiin saasay talooyinka inoo siinayaan, saasay inoo garab taagan yihiin. waddamadan aan joogno waxa weeye wax bilaashii ma jiraan. talooyinka aad arkaysaan ee ay mataqaanaa weliba ninkaa gaalkii uu bixinayo waxa weeyaan bilaash kugu arki maayo, bilaash kugula talin maayo. laakiin culimmada khayr allaha siiye bulshadooda mataqaanaayey wax walba saasay u garab taagan yihiin. marka idinkuna usoo duceeya insha allah biidnillahi kariim. kusoo dirsada abudalxawan@gmail.com insha allahu tacaala. sheekhu insha allahu tacaala kelmaddii awal bay inooga hormarin jiray buu inooga hormarinayaa, kadibna waxaynu gudageli doonaa talooyinkii kusoo dhacaya abudalxawan@gmail.com. أولاً شيخاً سودوين يا شيخنا الفاضل فليتفضل مشكوراً مأجوراً. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. ما بعد، أحبائي في الله، waxaan mahad u celinayaa allah tabaaraka wa tacaala noo oggolaaday, noona qadaray oo noo xukumay inaannu annagoo kala fog isla joogin inaannu iswaaninno, kala faa'iidaysanno, alla isxusuusinno tabaaraka wa tacaala. ثم intaa kadib walaalaha iyo mas-uuliyiinta rag iyo dumarba qolkan barakaysan iyo barnaamijkan barakaysan noo daadihiya, ka fikira, wakhti ku bixiya, xoolahooda ku bixiya, caqligooda iyo cilmigooda ku bixiya. ilaahay waxaan oga baryaa awlaaddooda inuu ugu xifdiyo cimri dheer oo cibaado lana ilaahay uu ku siiyo tabaaraka wa tacaala, sababna uu ooga dhigo hidaaye iyo hanuun qalbi ah, hoggaansan xubnaha ah, iyo tawfiiq kelimatu tawxiid goorta ay geeridu timaado. allahuma aamiin. axibaayi, intaa kadib caawa annagoo daahnay oo salaadii maqrib ay waktigii aanu sugaynay, waan soo koobayaa kelimada biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan islahaa caawa bal kelimo anigoo kitaabka qur-aanka aqrinaya aayad istaajisay oo macnaheeda iyo waxa ay xumbaarsan tahay qalbigayga raad ku reebtay. siduu alla yidhi: afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. aayad kale: afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira. oo qur'aanka miyaynan dhuuxaynin, oo qur'aanka miyaynan ku tadabburaynin, hoos miyaynan ugu dhaadhacaynin, axkaamtiisa miyaynan qaadanaynin, xalaashiisa miyaynan cunaynin, xaaraamtiisa miyaynan ka fogaanaynin, wacdigiisa iyo yaboohiisa miyaynan qaadanaynin, waciidkiisa iyo goodigiisa miyaynan ku cibro qaadanaynin, qisaskiisa iyo taariikhda uu noo soo gudbinayo umamkii naga horreeyey iyo ambiyadii loo diray
miyaynan istaajinaynin cashiro iyo duruus miyaynan ku qaadanaynin هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى آية في كتاب الله من قرأها وتدبرها وتمعن في آياتها وما تحويه من تهديد ووعيد نجا بإذن الله في الدنيا والآخرة في دينه ودنياه. قال تبارك جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. آياتك دورك كما قاري دونه معارضو ذا إنا ولا تلمامو علمك يقول ما قارسيسنو. الله تبارك وتعالى وحليه قفك كجيست عن ذكري قفك كجيست قرآن كيغا قفك كجيست ومن أعرض عن ذكري الله أكبر ومن أعرض عن ذكري وحليه العلامة ابن باز رحمه الله هذا وعيد شديد لمن أعرض عن ذكر الله وعن طاعته فلم يؤد حق الله هذا جزاؤه ووعيد وقودي aad u daran qofka ka jeesta dikriga Allah tabaaraka jalla wa ala. maxaa maanta nooga baahi badan inaanu aayadan aanu fahamno? xagay ka timaadaa nolosha ciriiriga ah? xagay nooga timaadaa qalbiga ciriiriga ah? xagay nooga timaadaa walwalka iyo walbahaarka iyo fikirka iyo buufiska iyo isku buuqu? xagee nooga yimaadaa isla hadalku? xagee nooga yimaadaa kalsooni la'aantu? xagee bay nooga timaadaa kalsooni darradu? xagee nooga timaadaa tawakkul la'aantu iyo inaan alla tala saaranin? xagee bay nooga timaadaa xubnaheennu inay cibaadada ka mashquulaan? xagee nooga timaadaa qalbigeennu inuu macaasida iyo xumaanta jeclaado? xagay nooga timaadaa qalbigeennu inuu lahwiga iyo waxaan adduunyada la xidhiidha xubu dunya jacaylka weyn inuu qalbigeennu inuu xubu dunya ay fadhiisato? xagay nooga timaadaa habeenkii inaan kici weyno oon cibaado u kici weyno? xageebay nooga timaadaa inaan annagu inaan isu daba jeedinno oo shaytaan dhexdayada soo galay dabcan oo aanu isu cadhoonno? xaggeebay ka timaadaa naxariista alle inay tabaaraka wa tacaala naga dib dhacdo? xaggay ka timaadaa cudurradu inay bataan? xaggeebay ka timaadaa baryadeenna in la aqbali waayo? xaggeebay ka timaadaa inaanu isdilloon qabaa'il mutanaaxira in loo kala baxo? xaggeebay ka timaadaa qalbi qallalan oo aan innaba dhibic ka imaanaynin, oo uusan qur'aanku qoynaynin, oo axaadiistu ayna qoynaynin, oo aayaadka alle ayna qoynaynin, oo dhagaxa ka sii adkaaday? xaggeebay nooga timaadaa? waxaa nooga jawaabaya aayaddan ayada ah. aayaddan buu alle nooga jawaabaya tabaaraka wa tacaala. alle wuxuu yidhi waman acrada can dikrii, qofka ka jeesta aniga qur'aankayga, qofka ka jeesta aniga wacdigayga, qofka ka jeesta aniga waciidkayga, qofka ku tadabburi waaya aayaadka qur'aanka ah, qofka maca xuduudda aayaadka ku istaagi kari waaya, qofka dastuur iyo dhaqan ka dhigan waaya, qofka ku cibaadaysan waaya, alla ugu dhowaan waaya, qofka aniga igu xusi waaya, qofka aniga igu weynayn waaya, qofka barashadiisa u soo xaydxaydan waaya,
ee aniga dikrigayga inuu barto qalbigiisa ku sifayn waaya ku tirtiri waaya nuurkaasi ka xarima qur'aanka qofka nuurka ka xarima qalbigiisa abaalkiisu waa maxay natiijadiisu waa maxay qoysaskiisa maxaa ku imaanaya carruurtiisa maxaa ku imaanaya xoolihiisa maxaa ku imaanaya nolosha oo dhan marka laysku soo daro sidee bay noqonaysaa maxaa ka dhalanaya oo abaal ah oo ilaahay uu kugu abaalmarinayo oo qofka beddel looga dhigayaa dhegayso waman acrada can dikrii aniga dikrigayga qofka ka jeesta ilaahay muxuuna amrayaa inaan qur'aankiisa aanu aqrino inaanu cibaadaysanno aw salaadii aw xalaawatu liimaan iimaanka macaankiisa maxaan u dareemi lana aw alkhushuucu fi salaah oo maxaanu salaada ugu khushuuci lana ayna tadabburu fi kitaab illah oo maxaanu kitaabka qur'aanka ah aan ugu tadabburi lanahay kullu dhalika su'aalahaas oo dhan cuquubada markii laga tegay cuquubada ka dhalatay yay aayadan xaqiiqatan waa aayad mudan in lagu dul istaago waa aayad mudan in macnaheeda la dhuuxo waa aayad mudan mufasiriintu waxa ay ka dhaheen in la aqriyo waa aayad mudan qofka inay naftiisa ay beddesho oo iimaankiisa ay beddesho oo socdaalkiisi ay beddesho oo mawaaqiftiisi ay beddesho oo ay qalbigiisa beddesho oo ay carabkiisa beddesho oo ay xubnihiisa beddesho oo ay caqligiisa beddesho natiijada ka dhalanaysa daraaddeed walidaalika buu alla yidhi waman acrada can dikrii aniga dikrigayga qofka ka jeesta oo alla yidhi fadkuruunii adkurkum war ixusa waan idin xusayaaye waadhaakiriina allaha kasiira waadhaakiraat waxaa ammaanan ragga in badan alla xusa iyo dumarka in badan alla xusa ilaa uu nabigu ka sal ly slam sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun wama almufariduuna ya rasuula allah qaala adhaakiruuna allaha kasiira waadhaakiraat waxaa darajadii sare qaatay oo ku hormaray jannada ku hormaray kuwa maxaa la yidhahda mufariduunta ah markaasay saxaabadii weydiiyeen nabigeena calayhi asalaatu wassalaam markaasuu yidhi addaakiruuna allaha kasiira waadhaakiraat waa kuwa in badan alla xusa walidaalika xuska rabbulciza waa tuma'niina walaalayaal waa deganaan walaalayaal waa xasilooni waa deganaan xagga qalbiga ah waa deganaan xagga xubnaha ah waa tawfiiq xagga rabbi ka imaanaysa waa hadal wanaagsan oo hadal macaan bay dhalaysaa inay qofka carabkiisa hadal wanaagsan ka soo baxo oo ficilkiisu uu ficil wanaagsan noqdo walaalayaal dikrigu qalbigu nuuriyaa qalbigu iftiimiyaa dikrigu qalbiga ayuu jilciyaa dikrigu qofka wuu jiljilciyaa oo wuu tarbiyeeyaa dikrigu qofka waa toosiyaa xuska allah qofka damiirkiisuu toosiyaa dadnimadiisuu toosiyaa meelaha xun oo dhan buu ka ilaaliyaa shaydaanka ayuu ka xijaabaa isha ayuu ka xijaabaa dikrullah allahu akbar fawaa'id cadiima jiddan ayuu dikriga alla leeyahay tabaaraka jala wacalaa walidaalika buu allah leeyahay dikrigana qur'aanka ugu weyn afaman sharaxa allahu صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبه من ذكر الله قفك إلهي إسلام قلبي سكو شرحه قفكاسي نور بكد السجية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قرآن نور إيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النور أيا قلبي أي وحكا قادنا إياه markaasay nuurun calaa nuur waman acrada can dikrii yaa doonaya liibaan yaa doonaya iطmi'naan iyo deganaan yaa doonaya xasilooni yaa doonaya sacaado iyo liibaan adduun iyo aakharaba yaa doonaya ducadiisa in la aqbalo oo ilaahay agtiisa laga aqbalo yaa doonaya xoolihiisa in la barakeeyo
oo xalaal lagu barakeeyo yaa doonaya cumrigiisa in loo dheereeyo yaa doonaya cumrigiisa in loo barakeeyo yaa doonaya carabkiisa baraka in la geliyo yaa doonaya indhihiisa in baraka la geliyo yaa doonaya awlaadiisa in loo barakeeyo yaa doonaya caqligiisa in loo barakeeyo yaa doonaya qaraabadiisa in loo barakeeyo yaa doonaya allah inuu jeclaado yaa doonaya nebi moxamed inuu jeclaado sala allahu alay wasalam yaa doonaya muwaxidiinta iyo awliyaa'ullah inay jeclaadaan yaa doonaya inuu weliyun min awliyaa illaahi noqdo yaa doonaya hadalkiisa in laga barto samada yaa doonaya inuu shaydaan ka cararo yaa doonaya yaa dhammayn kara intaasoo dhan oon tilmaanay axibaa'i fillaah qofka doonaya waa inuu ilaahay dikrigiisa badiyaa waa inuu xuskiisa badiyaa waa inuu qur-aanka aqriyaa waa inuu xalaqaadka cilmigaa badiyaa waa in waxa loo sheegayo uu ku waana qaataa aayadaha loo sheegayo axaadiisa loo sheegayo wacdiga loo sheegayo waa inuu ku istaagaa waa inuu ku tadabburaa waa inay naftiisa ay beddesho aayadda qur'aanka xadiidka waa inay naftiisa beddesho suluugii iyo dhaqankii iyo akhlaaqdii kharibnayd waa inay aayaddan waa inay ku beddeshaa qur'aanku waa inuu ku beddelaa axaadiista rasuulka waa inay ku beddeshaa shareecadu waa inay ku beddeshaa waxyigu waa inuu ku beddelaa qalban wa qaaliban waa in lagu beddelaa shaksi kale waa inaad ku soo baxdaa caabid alla u rukuuca oo alla u sujuuda oo alla u ooya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wejiga dhulka u dhiga asaga raaligeliya ikhlaas maxdi ah ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii raaligeliya cid kale aan raaligelinin waa inaad ku sifaysnaataa waa inaad ku tilmaanaataa walidaalika kelimadan waa muhiim kelimada waa muhiim jiddan maanta marka aad fiiriso qofka meelo badan marmara oo magaalooyin badan marmara wuxuu arkayaa iyadoo in badan la weydiinayo sheekhow stress baa ihaya sheekhow buuq baa yahay waa isku buuqsanahay sidan baa i haysata ayadoo laleeyahay laakiin daawadii ma aanan garanin waxaan rabaa inaan laba kelimo aan ku khatimo daawada bacdallaahi adigaa isu haya daawada dhakhtar kale kuuma hayo adigaa isu haya cudurkuna adaa isu keenay بدل نفتاضة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحائع جبسي قبلها أن الصومالية كميدة أي أنيقو خطبة له أي خطبة كور بي تليفون إيسو ديرتي الرمانو كلي إيش شيغتي أنيقنا خطبة قدرة الله موضوع الذكر أي كساب سري موضوع مركي عن دقي أي قبل إيتبه وحيتري وجدت الجواب في الخطبة خطبة بان كده حلي جواتي ونبهني هذا كلها الله أنا موقف كأن دونيو شيء كأن دونيو أنا إذا كني رجالينيو نفط إذا كني رجالينيو وتشدد عربنا إنا نجارنو وقف والبينو ها aniga maanta waan gaaray ujeedadaydii cudurkaygina waan gartay aniga isdaaweynaya aniga rukuucaya aniga sujuudaya aniga wajiga 15 daqiiqo ka badan aniga dhulka ku haynaya aniga ilaahay u ooyaya aniga xubnahayga u duleynaya rabbul izza aniga qalbigayga adduunyo ka saaraya aniga saaxiib wanaagsan la soconaya aniga filinka joojinaya aniga xumaanta joojinaya filimada xunxun baan joojinaya waxaan joojinayaa heesahan joojinayaa saaxiibka xun baan joojinayaa aniga naftayda isku mashquulaya ilaahay baan naftayda u jeedinaya kitaabkan la saaxiibaya bukhaari baan la saaxiibaya axaadiista rasuulkan la saaxiibaya culumadan la saaxiibaya tafsiirkan la saaxiibaya salaadan la saaxiibaya salaatuleylkan la saaxiibaya aniga naftayda aniga aqaan cadaab iyo janno naftayda ayadoo bay dhibaysaa maxaliga cadaab ku dhibaya jannaduna ayadaa ku raaxaysanaysa maali walinaas aniga iyo dad maxaa iga galay aniga nafsi ayay arrintu taagan tahay qofkaa weeye qofka nolosha itmi'naan iyo deganaan iyo xasillooni ku noolaanaye qof walba caawa go'aan gaadh daawada adigaa isu haya bacd allahi tabaaraka wa tacaala allah waxaan weydiisanayaa inuu kelimada uu nagu anfaco haddana waxaan ku wareejinayaa walaalaha qaaliga ee qiimaha badan ee sharafta badan
الله درادي وجعله تبارك جل وعلا موضوعا يسوحل ساري إني نو هجان ونو دهديان دنوينها يبلشده تولوينك يا مجالده كجيل راعية تلفونك وتا قرحنا محلي هذا إنترنت كويسو قبريسو كده جيسانية أيان كوسو ويتشينيا إلهنا وحي ونكسرنا وافاتشي وبالله التوفيق